caruuska ah habeenka aqalgalku waa habeen qurux badan oo ay wada qaadan doonaan caruuska iyo caruusada. haddaba diinteena islaamka waxaana bartay dhaqan walba oo ku saabsan dhaqamadeena. xitaa habeenka aqalgalku waxa uu leeyahay aadaab u gaar ah oo loo baahan yahay in ay maraan caruuska iyo caruusada, kaas oo ay ku helayaan ajar ballaaran oo kaga yimid Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa. walaalkayga muslimka dhalinyarada ah oo uu ku soo wajahan yahay habeenka aqalgalka, waxaa maskaxdaada ku taagan oo aad mar walba isweydiinaysaa sidii aad yeeli lahayd ama qaabkii aad ula dhaqmi lahayd xaaskaaga habeenka aqalgalka. markii aad tala weydiisato qaar ka mid ah asxaabtaada oo kaaga horeeyay barnaamijkaasi ayaa waxa ay kuu sheegayaan waxyaalo qaar, sida in aad cunto waxyaalo macmacaan ah ama aad ku dhacdo waxyaalo qaar oo xaaraam ah, taas oo kaa qaribaya habeenkaaga quruxda badan. ogow, ma jirto waddo loo xadiday caruuska iyo caruusada oo gaar ah oo ay ku dhaqmayaan, balse waxaa lagula talinayaa inaad la timaado degnaan, farxad, reenreen dheeri ah habeenada ugu horeeya ee guurka, kaasi oo laga yaabo inuu baaqi sii ahaado inta cimrigiina ka dhiman. waxaa lagaa dalbanayaa markii aad dukato 2 rakac ee salaada ah aadna akhriso ducada sunnada ah in aad bilowdo degnaan dhimnaan dheeri ah, haba ahaatee meesha ugu dambeysa ee aad gaarsiin karto adiga oo aan ku degdegayn galmada. wax diidayana ma jirto inaad dib u dhigato maalinta labaad haddii gabadhu aysan diyaar u ahayn habeenkaasi aqalgalka. wax waajib ah inaad soo qubaysato, isa soo qurxiso, isa soo carfiso, aadna xilato dharka ugu quruxda badan, aadna u bilowdo gabadhii sheekooyin jacayl ah kaas oo aad ugu hadlaysaan mustaqbalka iyo xaaladda guriga sida ay noqonayso. ogowna in gabadhu ay habeenkaasi rajaynayso galmada, ayna aqoon durugsan u leedahay arrinkaasi waa walwalka ugu badan iyo caruuska iyo caruusadu ay maskaxda ku hayaan. walaalkayga muslimka ahow, waxa aad la joogtaa xalaashaada. Allah subxaanahu wa tacaala wuu idin daalacanayaa, raali ayuuna idinkaga yahay, bal waxa uu idin qorayaa ajar. maraaxisha kugu waajibka ah inaad marto habeenka aqalgalka, raac tallaabooyinkan soo socda. tallaabada koowaad, waxaa la sunnaynayaa in qofka caruuska ah uu gacantiisa saaro madaxa caruusada, kadibna uu u magacaabo Allah subxaanahu wa tacaala, kadibna uu barako ugu duceeyo. sida xadiiska saxiixa ah Imaamu Bukhari, Abu Daawud ay soo saareen oo rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam uu ku yiri, haddii midkiin uu guursado xaas, ha qabto foodeeda, kadibna ha u magacaabo Allah subxaanahu wa tacaala, kadibna ha u baryo barako, kadibna ha dhaho Allahumma innii as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha calayh wa acuudu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha calayh, oo ay macnaheedu tahay Allahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrka aad ku abuurtay gabadhan, sidoo kale waxaan kaa magangelayaa sharteeda iyo sharta aad ku abuurtay gabadhan. tallaabada labaad, waxaa la sunnaynayaa in caruuska iyo caruusadu ay wada tukadaan 2 rakac oo sunno ah, kadibna ay Allah baryaan salaada kadib. tallaabada saddexaad, waxaa la sunnaynayaa in qofka caruuska ah uu u jilcanaado caruusadiisa, uuna u keeno wax ay cabto ama ay cunto, sida rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam laga wariyay uuna ku yiri, akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa altafuhum biahli, oo ay macnaheedu tahay mu'miniinta ninka iimaankiisa ugu dhamaystirka badan yahay ayaa wuxuu yahay ninka ugu dabeecadda wanaagsan, iyo sidoo kale ninka ugu dhiminta badan ama ninka ugu naxariista badan xagga ehelkiisa. waxaan shaki ku jirin in jilcanaantaasi iyo dabeecad wanaagaasi ay gabadhu ka baabi'inayso cabsida badan ee ay kaa qabtay habeenka aqalgalka, ayna u furayso waddo ay kula macaamisho habeenkaasi quruxda badan. tallaabada afaraad ee lagaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka ayaa waxay tahay inaad la ciyaarto, aad qoorqoorayso, aadna dhudhunkato gabadha inta aadan u tegin ka hor. tallaabada shanaad ee lagaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka, waxaa la sunnaynayaa in caruuska uu akhristo ducadan inta uusan u galmoon xaaskiisa, sida xadiiska saxiixa ah ee uu soo saaray Imaamu Bukhari. Ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma uu ka barinayay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam uu ku leeyahay, haddii midkiin uu u tago ehelkiisa ha yidhaahdo bismillaah, kadibna ha ku duceysto Allaahumma jannibna shaytaan, ilaahu naga fogay shaydaanka, wajanib shaydaana maa rasaqtana, waxaad nagu arsaaqdana ka fogay shaydaanka, oo ula jeedo caruurta. fa in qudiya baynahumaa, haddii dhexdooda uu wax ka dhasho waladun caruur, lam yadurhu shaydaana abada,
shaydaanku weligiis ma dhibi doono carruurtaasi. Tallaabada lixaad ee lagaaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka. Qofka caruuska ah waxaa u bannaan in uu xaaskiisa u tago qaab alaala qaabka uu doonayo, laakiin shardigu uu yahay in uu meesha kaga tegayo ay tahay farjiga oo keliya. arrinkaasina waxaa u daliil ah hadalka subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay suuratul baqara: nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarthakum annaa shi'tum, oo ay macnaheedu tahay xaasaskiina ugu taga farjiga dhan walba ha ahaatee, dadaal horay iyo dhinacba. tallaabada toddobaad ee lagaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka